madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo wafdi uu hogaaminayo oo maalmahan safar shaqo ku joogay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa booqday madaarka magaalada Boorame sida uu warkaasi noogu soo diray wariyaheena Sakariya Saxane. madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Siilci wafdiga uu hogaaminayay oo wali ku sugan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxay maanta howlka dawladda hoose ee magaalada Boorame ay kulan kula qaateen xildhibaanada golaha deegaanka iyo maayirka degmada Boorame. kulankan oo ah mid isxog wareysi ah ayaa markii uu soo dhamaaday kulankaasi waxay kormeer ku tageen madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdiga uu hogaaminayay oo ay ku helinayaan maayirka iyo barasaabka gobolka Awdal madaarka diyaaradaha ee magaalada Boorame oo dhismo socdo. waxaan ugu horeyn ka warbixiyay halka uu marayo madaarka diyaaradaha ee magaalada Boorame mas'uuliyiinta gacanta ku haysta waxaana hadaladoodii kamid ahaa degmada waxa weeye intii aad timaadeen waxaan siiseen dardar fiican badan siiseen annaguna waanu shaqaynay maamulka gobolka la shaqeeyay imikana wixii kale qabanayno diyaar baan nagu nahay meesha waan ku soo dhimanay istaanbi baan lahayn habeen maalinba hawlo ayaa ka jiray maalmahanba socday oo lagu dardargelinayo inuu madaarku shaqeeyo hawshaas meel wanaagsan bay noo maraysaa. waxa weeye waxaanu wareejinay calaamadihii lagu ridayey kaabadaha waxaa noo dhiman inaannu kaabadihii ku ridno garoonku siduu safetigiisu u sugnaado. dhinacaa waxaanu dhignay carituul aynu ku xidhayno garoonka si ayna u soo gelin gaadiidka iyo muxuu ahaa iyo xooluhuba. waxa weeye inta kalena waxaynu rabnaa maalmaha soo socda inaynu ku wareejinno kaabadihii iyo siligiiba siduu safetigu u noqdo mid wanaagsan oo ay diyaaraddu u soo fadhiisan karto iyadoo nabadgelya ay u kici karto. ku sugannahay waa airportkii Boorame oo imika wax qabad ka socdo oon ugu talagalnay haddii aan nahay golaha deegaanka ee degmada Boorame wixii waajib naga saaran yahay ee itaalkaya ee qaban karna inaanu qabanno baahiyaha wax laga qabanayo ayay qayb ka tahay inaan airportka wixii wax aan ka qaban karna ka qaban iyadoo hay'adii u xil saarnayd ay garab taaganto isku duwihii iyo maamulkii airportku iyo shaqaaluhu halkan ku sugan yihiin haddana annaga waxaygu waa taageero iyo wax qabad inaanu ku taageerno. waxaan nasiib wanaaga madaxweyne ku-xigeenkii mar hadduu maanta taagan yahay ragga qaar baa dacwa jirtay la iimanayso ahayd naqshadii wax laga bedelay madaxweynuhuna ahaa raggii naqshada wax ka hayay madaxweyne ku-xigeenku maanta isagoo jooga hadalku wuxuu ku dhan yahay wax airportku leeyahayna la qaadan maayo wax beeraa dheeraada oo airport ka qaadanayaan ma jiro. hawshan aad iyo aad baan uga mahadnay howlwadeennada airportka iyo maayirka oo kharash geliyey oo aan miisaaniyadaba ugu jirin. waxaan maanta isla bisha gudaheega markii ladaanka u soo joogsanay amaan u soconnaa in wax danteena guud wada una quseeya oon qof gaara wax loogu doonayn. waxa weyn airportkani waa airport inaga dhexeeya inaan hagaajisanana waa waajib ina wada saaran hadday tahay golaha deegaanka hadday tahay dawladda dhexe iyo hadday shacbiga tahayba. maanta waxaan ku soo joogsannay garoonkii wixii intuu ahaan jiray unbaa la calaamadaynayaa oo la soo dayraya maaragtay silig lagu soo xidho insha allah. meel cusub wixii uu lahaan jiray wax lagu daraya oo maanta lagu durkayaay oon isleenahay macnihii airportkii uu yaraadayoo dhul cusub baan u baahannahayoo diyaarado ka waaweyn baan ayaa imanaya inima lihin intii maanta horta inoo ahaa ee walba xukuumadda iyo dawlad hoose iyo dawladda u diiwaan gashanayd intiinaan calaamadayno oo berri shaqadaasi bilaabanto annagoo gobolka joogna madaxdii haddaan nahay qaranka ka socotay annagoo joogna in berri halkaa la bilaabo weeyaan. berrito ayaa la bilaabayaa calaamadii baa la bilaabayaa cagaftaa la marinaya lagu calaamadaynayaa ciddii markaa hadal ka qabta ee wax ka hor timaadana waxa weeyaan taasi uma fadhin. Sakariya Saxane, Royal TV, Boorame.